shirar badan baa la isku imaadaa especially Philippines shirar badan baa ka dhaco laakiin shirarka way kala duwan yihiin mid waxa looga hadlaa horumar mid siyaasad baa looga hadlaa mid arrimo mataqaana khaas ah private ama business baa looga hadlaa waxbarashada marka way ku yartahay marka waxaana u maraysaa inay tahay waxbarashada waxa ugu muhiimsan waxa la yiraahdaa waxbarashadu waa maalgashi abid ah investment waxa waayo aan dhamaanin faa'iidadeedana ma aragtay dhaxsal la helo markasta wax kasta bay ka faa'iido badan tahay ummadda haddii wax la baro ummad fiican bay noqotaa moor ummaddu cilmi ay leedahay waa moor ay fiican tahay waayo waxay haddaan dib idiin celiyo dalkeena waa iskagama sheekeynayno qof kastoo hadla uu ka sheekaya dhibaatada waxyaalaha ugu badan oo loo aanayana waxaa ka mid ah jahligaasna meel kale kama iman waddanka marka waxaa haysto hogaamiye la'aan hogaankana marka bulshadu ka soo dhaxbaxaa bulshadii marka haddii ummadii wax la barin oo marka yar yihiin la soo tarbiyeeyo la soo hagaajin waxay ku dhamaanaysaa inay ka soo baxaan hogaamiyayaal xun marka si hogaamiyayaal fiican loo helo waa in ubadka wax la baro way dadka da'da yar in la baro waayo marka waxaan rabaa wax yar inaan aadan jaamacadda wada sheegayo gobolkan hadda magaalada Dhabbad gobolka ku taal Galguduud wax yar aan ka iraahdo sanadka soo dhaafan waxaan tagay Muqdisho waxaan rabay inaan yara gaaro gobolkan Galguduud laakiin ii suuragal weyday dad baan la kulmay waxaan aad oo la sheekaysan dhanka waxbarashada Muqdisho dabcan jaamacadda ku sheegayaan u tagay oo aan wax ka dhigayay muddo dhowr bilood ah marka waxaan ogaaday gobolka waxbarashadiisa inay ka mid tahay gobolada Soomaaliya dhanka waxbarashada ugu liidato marka ani iyo dhalinyaro kale iyo aad u darisnay علوم يا عم يا دليرك رجع دمر اسكو جران مركا وحان وأرجني قبل كا لو قيمة اسكو جران يعني وحبرشة أساسي وهو سئنا مقنتها تي دحينا مقنتها تي كورو جامعة هنا إنا مقنتها قبل الصومالي قرب جامعة لكن وحكمتها قبل هذا فرق الدرس كو جامعة عن هاي أنا قبل كمالة كبلونا نوقت كاتي حاجات كبلودي ما كوير يا ربع صور دستين كوا مركز لحد كوير لهدي أن تايم سينو كوا حاجر لحد كجرو أو نقص وينها أيام عرفت إيه وحنا غلطوا بها سوق لو حاجر كوا وين هذي أو أيجينا ما عرفت قتل كجرو أما الضوف سكروا أما كرايمي وحياة ما عرفت كرة هكذا مركب حاسو بناي واحد هذا باكج جامعات يا اسكول جرا هنسوقناي marka fikirka waxaan la imaanay jaamacadda Galguduud اسكول يراها اسكول دور يعني حبا او مارتي يا magaalada awba iyo agaarkeeda ku yaalo dadkaas marka hay iskuulka ka soo baxo tayadiisa haliilato laakiin at least dad ba ka soo baxo saddex iskuul iyo waxa ku yaala umaleynaya waxa loo diraa Muqdisho markay ka soo baxaan intii awoodo iyo Boorame يا بوساس الله كلا ترى أنتي أود ولا هي نوين جوتة ماشي كنا قاعدين جوا المركز قاد بسكبرتان مارتين دراجة سكبرتان أما وجهه بسكنقلا سوار سكبرتان مركا وحالنا ما نفكر كان يراد الجدود يونيفرسيتي سدح قبل بانو كلا قادناي قيب دل يراد هاي سكول كصوم مرتين هاي سكول كان صوم مرين برنامج مركا حنوصل بالناس إذا جي إذا هل كان لقي رهضة كريم أو نخص قف كل وجود يعرنا أيه سوى جامعات ليفل كده جارة كوي جام هاي سكول كسور دمينا وحنود يعرنا أيضا ليفل كولج كان يعرنا جلسة ولا بدي كولج هو متقنا كيرا يعود يعرنا سوى كلا هاي سكول اللي ماشي كيالي أيان حرير في عمل صوبناي إن شاء الله وربحنت إذا بريبة ما تقنا ضد ماشي كي ما ذا كور بحن دونا مال في عم بهذا مرة سأل بأكرتين ضد أديك لما بقول يا أبا هذا يا ما تقنا بكتب ولينا ما أردتي ويسيب كريسة بلشدنا وين عاوسة وحين فهمت إنه وحبران كران
inay jaamacado dhisan karaan inay iskuul dhisan karaan marka jaamacadda halkaas hadda maraysa Galmudug University marka waa gabadha ama walaalaha dabadha iskuulka ka furay xaqiiqo wax aad noo taabanaya weeyo oo wax muhiim ah loo baahnaa hadii gabadhaas bas ama walaalahaas ay high school suubiyeen ka warama hadaan anaga dhamaantan oo qof kasta ama saddexda qofba ay suubiyaan qayb yar ama hal high school ama hal middle school ama hal intermediate waxaan u baranayaa Soomaaliya dad iskuul wada noqon lahayd umadeena dhaqsan bedelmayay hal ninba hadda ka hore malaha waxaan u rag military ayaa garanaya waxa la yiri waxa la isku aqoonsa calaamad waxa lagu wada xirtay ciidamada marka ninba wuxuu yiri example ahaan 10 kun oo nin sida loogu xiri karaa madaxa wax time badan ay qaadanaysaa qof kasta in madaxa wax lagu xiro marka waxa lagu yiri madaxaaga adiga hadda ka mas'uul noqotaad ku xirato 1 minute oo ay soo maaha marka hadii aan dhamaantii iskuul wada dhisno ha wadankii marka dhaqso isbedelaya marka waxay rabaa muhiimadda waxbarashada inaan sheego yani sidii waxa la yiraahdo waxbarashada wax kasta way ka muhiimsan tahay example aan u soo qaadana maalka waxaan u maleeynaa wax loo jecel yahay waxa meeshan wada kaliin u badan yahay waxa waqtiga iyo ku dhuminana waa maalka laakiin waxbarashada wax yar iyo ma aragtay maalka waxa u dhaxeeyo waa yani knowledge cilmiga iyo waxbarashada waxa u dhaxeeya wax yar ka yani mutaqaanina ka dhaaro waxa la yiraahdaa cilmiga haddii wax laga qaato oo ku bata maanta cilmigaaga haddii aad qof barto oo si badan for example diinta kala soo qaadan nishaha cilmi baray dad wasiifa fi ajra soconaa soma sidoo kale ninka macalinka oo iskuulka dhigo ma uu wax baro waa asagii wixii inuu si fahmo maadada uu si fahmo waa laakiin maalkaaga maanta wax ka qaad waxa ka qaadaa 100 kun haysatay min kur u qayb dadka maxaa soo haray waxa ma soo haraya marka cilmiga wuxuu saas uga fiican yahay maalka sidoo kale waxa la yiraahdaa maalka ada waxa u baahan yahay inaad ilaaliso lacag maanta hadaa haysato aad baa walaanaysa akoonka fiirada saving account and fronaysa credit card iyo balaha soo qaadanaysa laakiin cilmiga asaga ku ilaalin ورزقون ورزبان ساكا يرالين ودادي فعلين بوشيغي ودادي حمايدنا ما أرتو بوشيغي سيدو كله علمي وحا ليرada wax kasta u baahan laakiin maalka qofka soo baahan qof dhintay maal ma u baahan in la siiyo maanta cunto uu ka cunayo waa may laakiin wuxuu kaaga baahan yahay cilmiga sida loo duugi lahaa karfanti la gelin lahaa waxa soo dhan uu kaaga baahan yahay marka waxa weeyaan ما نرى إحنا أخذنا قف نبوها أكثر مجلسة أكتوبر 21st هذا بيشان كجرنا لو أعتقد كعنك مركب كفراي مركب واحد كجرتي الفرد الصومالي وقالوا لي سو official أنا مركب لوقاتي وحيه وكل واقع إن لقادنا يوم دبالدق كعنك بيحيد كوي لو أعتقد أكتوبر مركب وحنج على هذا وبيدو صاقعتي ololihii iyo markii dadkii loo sheegay waxa ku jirta marka waxbarta aan barwaaqo gaarin ummadda Soomaaliyeed ololihii waa looga ummadda Soomaaliyeed oo illiterate ah waxba farba aan lahayn yaa ma aragtay waxa lagu gaarsiiyay waqti yar gudaheed oo ummadda oo dhan inay wax qori karto yaa la sugay marka wax weyn oo aad muhiim u ah marka wuxuu leeyahay badda iyo beriga khayrka ka buuxo dad soo bixiyay rabaan ee waxbarta aan barwaaqo gaarin qabiilka la buufinaya asaagii ku beegsan meeyne waxbarta aan barwaaqo